ahay xildhibaan daahir amiin jeeso warkiisii warkaas war cad ma dawladda waxaan ka rabnaa hal mar ilduuftay oo go'aankii baarlamaanka labada aqal ka soo gudbay oo madaxweynuhu saxiixay ee hal mar si qalad u ilduuftay oo ay tanasushay markaan haddii ay tanasusho waxaan noo dhahan go'aankii daahir amiin jeeso xildhibaanka intaa waa intaa bacdama hadda afurkii la taagan yahay hadal badan halkan kama furna waa intii la yiri kaliya waxaan ku soo gabagabayn lahaa nin la yiraahdo aan u maleynaya magaciisa in la yiraahdo aadan galayr oo ilaahay intii qof adoonkiisa ah nimco uu sugu daray oo ilaahay uu siiyay geel iyo wiilal iyo fardo iyo awlaad tiro badan yaa waxay isqoomeen qoom dadkii ay dad ugu dhawaayeen oo ay ododag ahaayeen oo ay isbaahisiin in badan ahaayeen yaa isqoomeen ismaaciil galayr aadan galayr oo subit aadan galayr saxsan lak aadan galayr waa laga codbatay dawadeedna aadan wuxuu ahay nin awood leh laakiin markasta xeeladda ay ka soo daahdo tala kasta oo la siiyey oo la yiri war aadanow maanta dadkan waa dadkii wax badan ay naga dhaxeeyeen horena wax u tirsanayay haddeerna xaajo kale ay taallo waxaan rabnaa aadanow maanta nabad in la qaato haddii colaadu dhacdo oo mushkiladu timaado ninka ay wax ka daadanayaan oo waxaysta aadamo waa adiga aadam waa nin ilaahay sida aan sheegay xoolo siiyey laakiin xeeladu ka daahdee ilaahay taladii ma haleeshin dawadeedna wixii aadam waxaa la yidhi intii hor haba la gaaray hadda 98 neef oo geelah yaa halkan taagan war aadanow labadaas neef ku dar maanta aadan waa diiday haddii muddo la isku haysa war maanta labadaas aan ogolaanno iyo maanta ma ogolaan karno iyo war maanta labadaas haddii la diido waxa xumaana oo laga dhaxli doono yaa ka daraa doontee maanta aan labadaas ogolaanno ilaahay taladii ma haleeshin dabadeedna wixii laga digayay yaa dhacay colaadii dhacday dee awalba ninkii waxaystay wax ka daadanayeene aadan xoolihiina waa laga rogtay wiilashiina waa laga laayay dhibaatadii looga diganayana gacnuhu la galay wiilashiisa kuwa mardadowliyaha ilmuhu markii ay barwaaqada ku koraan oo xoolo iyagoo aana shaqaysan oo waalidkood iyo adeerkood iyo ehelkood u shaqeeyaan markay ku koraan ma fahmo badna mana fikir wacna kuwii marka celi waayey oo ilmihiisa ahaa oo warukaasha la dhihi waayey hawa la joogay ninkii ilmihiisa ugu ragsanaa oo curadka ahaa oo lahaa war aabbow naga daa war aabbow maanta colaha noo qaadin yaa colaadii lagu dilay intuusan naf bixin marka yuu ninkii dilayey yuu la dardaarmay wuxuu yidhi warniyahow intaanan naf bixin dardaarankan iga gaarsii ehelkaygii iyo dadkaygii iyo aabbahay 3 qodob in waxaan rabaa si fiican u dhageysataan 3 qodob midba mid iga gaarsii buu yidhi aabbahay waxaa iga gaarsiisaa xoolihii iyo hantidii aad diidaysay maanta wiil ha kuu noqdaan intaas aabbahay iga gaarsii walaalkay waxaa iga gaarsiisaa waa kii barwaaqada ku koray oo nacaska ahaa oo la celi waayey oo meelaha doobinaye xaaskayga ha dumaalo awalba waxaa loo shaqayn yuu maaragtay ku nacfin jiray ehelkayga adeerkayga waxaa iga gaarsiisaa buu yidhi ina adeerow maanta halkaanan alla ninkan dhibkayga ku soo gaarsiiyey fariinteedu markay ku soo gaarto wax kale lama samayn karee waa la fursan hal ii aaro yidhi hal ii aaro waxaan marka fursaddan uga faa'iidaysanayaa war labadaas sano yaana laga noqon labadii aadan galayr yaana naga noqon
labadii halaad oo aadan galeen u diiday ay samaanta naga noqon waliba waxaan ku darayaa taariikhan hore u leenahay laba la diido cali mahdi aan 2 sano ka diidnay cali mahdi maxamed 2 sano markii laga diidayay talaxumay ahayd magaaladan aan joognay korontaduna waa joogtay biyuhuna waa socdeen labadii sano aan diidnay waxay nagu qaadatay 30 sano 2 sano oo maanta halkaan taagan walaalayaal maanta aan talana seegin hore inoo seegtay wiilasha barwaaqada ku koray oo xoolo aysan shaqaysan oo adeerada abtaashad u shaqeeyeen oo meelaha doobinaya yaana maanta talada seejin maanta in horta laaye intaasaan ku soo gabagabeynayaa go'aankuna waa noo go'aankii daahir jeesow haddii dawladdu ka libiqsato maanta waxay maraysaa meesha la yiraahdo who blinks first ilmaha Mareykanka jooga markay isfeerayaan waa la iswaabiyaa marka waxay fiiriyaan midka koowaad muxuu ahaa hor libiqsada marka who blinks first yaa la yiraahdaa annaga yaanay maanta nagu dhicin nimankii waxa u mahayaan waa u wareereen waxay marayaan maanta yaa tolahay xilligii dagaalada sokeeye maadaama dawladdii burburtay yaa qabaa'ilaadka waxaa la dhihi jiray reer hebel waxaa tihiin aag koowaad reer hebel waxaa tihiin aag labaad reer hebelna aag saddexaad midii oo kalaa maanta taagan hebelow adigu guur maranaayo deg hebelow adigu guur warshadda baasada deg warxasa khayraw adigu guur dayrii la deg runta aan isku sheegno waa sidii cabdullaahi sheekh xasan oo sheegay wallaahi maranaayo haddii lagu nabad galo oo dadkii eedda laga galay looga nabad galo yaa nasiib la leeyahay ragguna raggii maaha xasan khayraw maxamed khayre ma tihid ma dagaalami kartid ooda waayow sigana ma tihid ma dagaalami kartid xasan shiikhow ma tihid xuseen xaaji bood iyo raggii raghay ma tihid idinku waliba waxaa dheertihiin eeda meel idin taala waa eedaysantihiin waddankan waxaa idin taalla magac xun waxaa idin yaalla sidii axmed fiqo ou sheegay niman ayaxa oo gaajaysan oo dalkii diirtay oo isbitaalladii gatay oo mushaarkii ciidamada gatay oo muxuu ahaa garoommadii lagu ciyaarayo gatay taariikhdaasaa idin taalla wallaahi qof idin soo baxay inuusan jirin waxaan ku soo gabagabeynayaa wartalow labadii halaad oo aadan gallayr maanta yaanay naga noqon waa mahadsantihiin